بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مدنيال iyo marwooyin daawadayaasha sharafta leh ku soo dhawaada barnaamijkan waxaa isla soo diyaariyay oo qabsoomidiisa isla kaashaday akademiyada Hano Academy iyo Sahal Cable TV anigoo ah injineer Cabdicasiis Faarax Ali Saciid ayaa barnaamijkan daadihin doona waxaana ahay xubin ka socota Hano Academy gaar ahaan wakiilka Hano Academy ee gobolada Puntland waxaan mar labaad iyo mar saddexaad ba u mahad celinaynaa TV-ga Sahal Cable oo barnaamijka runtii ahmiyad gaar ah siiyay maadaama uu ku saabsan yahay shaqo la'aanta dhalinyarada ka haysata wadanka barnaamijkan caawa wuxuu noqon doonaa dood iyo falanqayn ay ku samayn doono ardayda ka qalin jabisay jaamacadaha wadanka ku yaala dhibaatada ka haysata helitaanka shaqada iyo duruufaha iyo caqabadaha ka jira wadanka shaqo la'aanta ah iyo sidii ay dhalinyarta jaamacadaha dhameysay ama wax bartay iyo kuwa aan wax baranba ay u samaysan lahaayeen shaqo abuur iyagu haddii ay shaqo la'aan wadanka ka heshay waxaan marka hore introduction ka bixinaya ama aan rabaa in aan horta idin baro afar arday oo jaamacadaha soo dhameeyay oo dad qalin jabiyay dhawaan jaamacadaha Boosaaso ka qalin jabiyay ah dhinacayga waxaa fadhiya bidix marka koowaad injineer Cabdikhayr Faarax waa injineer ka qalin jabiyay kulliyadda engineeringka gaar ahaan telecommunications engineering ee jaamacadda Bariga Afrika waxaa sidoo kale isaguna nala jooga caawa Cabdirasaaq Sahal Xirsi oo dhameeyay degree-ga ama Bachelor of Commerce waxa uu ka baxay jaamacadda Boosaaso University of Boosaaso ee magaalada Boosaaso dhinacayga midig waxaa fadhiya Khadro Iimaan Xuseen waa gabar baratay oo dhameysay medical laboratory shaybaariste waxayna ka baxday jaamacadda Boosaaso ugu dambeyn waxaa iyaduna nala joogta injineer Hibaaq Maxamed Yuusuf injineer Hibaaq waa gabar injineerad ah oo dhameysay kulliyadda engineering gaar ahaan telecommunications engineering jaamacadda Bariga Afrika marka hore dhammaantiin ku soo dhawaada barnaamijka isbarashadaas kadib waxaa jirta mudanayaal marweyn marka hore horta aan tafaasiil iyo warbixin ka bixinaya sidaad kulligiinba la socotaan in arday fara badan ay jaamacadaha wadanka dhameeyaan sidoo kale ay jiraan arday iyaguna jaamacadaha dibadaha ah soo dhameeyay dadka wax baranaya ay aad u fara badan yihiin shaqada wadankeena ka soo baxaysana ay yar tahay duruuf aad u adag oo shaqo la'aaneed ayaa jirta qofkii wax bartay iyo kan aan wax baranba kan aan wax baran isagana xaaladiisu waa gaar laakiin dadkii 4 sano 3 sano 5 sano wax baranayay oo markii jaamacadii dhameeyeen shaqo la'aan ay iyaduna wadanka ka heshay waa arrin u baahan awareness wacyigelin iyo in maaragtay sidii wax looga qaban lahaa ciddii u baahan in ciddii ay tahay inay wax ka qabato awareness loogu samayn lahaa sidoo kale waxaanu ka hadlaynaa sidii dhalinyaradan hadda nala joogta afarta nagala joogta iyo kuwo kale oo badan oo barnaamijkan daawan doona oo magaalooyinka iyo dalkaba jooga oo aan hadda halka nala joogin iyagana aan uga wacyigelin lahayn ama aan u falanqayn lahayn haddii qofku uu shaqo waayo oo gaar ahaan waxa uu bartay uu shaqo ku waayo waxaa muhiima in uu fursado kale badan oo wadanka ka jira oo waxa uu bartay aan ahayn inuu shaqo ka abuuran karo oo uu fursad isagu samaysan karo sideedana waxaa jirta waxa la yiraahdaa qofku inuu shaqaale noqdo waxa ka fiican inuu isagu shaqo bixiye noqdo oo isagu shaqo abuuro entrepreneurship ama hal abuur uu la yimaado marka waan discuss gareyn doonaa ama waan faalayn doonaa fursadaha wadanka ka jira aad baan uga hadli doonaa oo ay tahay dadku inay shaqo helaan oo cid shaqo ay siiso ama dawladdu siiso ama shirkaduhu ay shaqo ka helaan ama hay'ad ay shaqo ka helaan iyo waxay barteen inay ku shaqaystaan kaliya aysan sugine inay iyagu fursado abuurtaan marka hore intaanan taas u gelinse waxaan doonayaa in aan horta dul maro dhammaan afartan mutacalimiin ee ila jooga jaamacadaha ka soo baxay mid walba uu nala wadaago isaga wuxuu kala kulmay shaqo raadinta dhibaatadu kala kulmay iyo khibradiisa meeluhu u maray sifaadku u maray waxyaabihii uu kala kulmay waxaan ku bilaabayaa
injineer cabdikhayr faarax 2 daqiiqo adoo kusoo koobaya waxaad nooga warantaa shaqadoon markaad jaamacadda dhammaysay aad shaqo raadisay caqabadii aad la kulantay. magacayga waa jaamac cabdikhayr sida injineerku sheegay dhameeye kuleedin telecommunication engineering. run ahaantii markii nin qof dhalinyara uu qalin jabiyo dee caqabad badan buu la kulmayaa, bulshada kala kulmo, kambaniyadii iyo mataqaanaa dowladdii iyo mataqaanaa meeluhu waxayna kala kulmo. qoraal waxaa jira aad mataqaanaa ii soo jiitay anooda mar akhrinayo qalin jabisi xagee u socotaa ahaa. marka taas waxay ku muujinaysay, qoraalka wuxuu muujinayay in ninka qofka dhalinyarada ama gabadhaada wiilhaada markuu qalin jabiyo ay la kulmayo caqabado badan, taasoo ka mid ah kow suuqa siduu ku geli lahaa, siduu dadka isku bari lahaa, si uu sheegi lahaa inuu yahay qof mutacalim oo bartay wax bartay. marka caqabado badan baa la kulmaysaa. waxaa ka mid ah midab takoor baa laga yaabaa mararka qaybtood inaad kulantid, mararka qaybtood waxaa laga yaabaa dhalinyaro takoor inaad la aan kulantid. ku saxay jaamaca horta midab takoor innaga dalkeena lama dhihi karo midab takoor. midab takoor waxaa la yidhaahdaa wadamada dadku kala midabka yahay iyo jinsiga. masalan waxaa dhihi kadhaa innaga qabyaalada deegaanka arrimaha noocaas muhiimadda wada takoor wey ama mataqaanaa qabyaalada hata ama kalarka ahaatee waxay noqotay qabyaaladda hadda waxay noqotay kalar qofka saaran waxay noqotay. marka muhiimadda waa takoor inaad mararka qaybtood la kulantid, mararka qaybtood aad la kulantid mataqaanaa in dhalinyaro takoor oo kale ama in dhalinyaradii mararka qaybtood laga cararayaba oo qofkii uu qof dhalinyaraha inuu raadsado intuu ka tago oo mataqaanaa waxyaalaha ugu badan waxa ka mid ah dowladda iyo hay-adaha iyo baa ka mid ah in la dhaho qof yeer soo shaqeeya oo loo baahan yahay ama experience waqti badan lagu xiro. marka nin dhalinyaro ayo soo shaqeeyay 1 year mataqaanaa jaamacad hadda soo qalin jabiyey inuu shaqadaas oo kale apply gareeyo waa ku adkaanaysaa. marka caqabado badan oo noocaasa jira. caqabado dhalinyarada laftigooda iyagu iska sababsadaan baa jiro oo ah in aysan xirfadda shaqo raadinta ku ficneen. marka taasaa waxyaalahaasa ka mid ah. aad baa umahadsantaha cabdikhayr. cabdirasaaq saxal xirse haye adigana caqabadii aad la kulantay markaad shaqo raadisay. بسم الله الرحمن الرحيم. أيوة عبد الساق صالح حرسي كبحي جامعة بوساسو. عقبات هذا بدن باجر رنتي أنا سوكو بكرين جامعة مركز أخرج بيه. سيدا مركز كوادين اللي يراهضو انتي يرسوش غيسي. أرتي يسوكو جامعة مركز دميي وفريش هابو كصباحية مركزها مركز ميل تجو كلا ما كمبين تجو أو ميل سودشيو وحكوا هذا اللي ودينا يا إتهاي انتي إكسبيرينس لا انتي سنة سوش غيسي. أما وحكوا هذا وقف كلا جربوا بيهاي إنه سهان 4 sano ama 3 sano ugu yaraan uu soo shaqeeyo kale. marka dhibaatada koowaad oo aan aad ku badan oo aniga iyo ardayda ila madaxda oo jaamacadda dhameysay la kulman waxaa ka mid ah intee sano soo shaqeysay runtii waana nasiib darro aad u weyn qof arday ah oo markaa ka baxay in lagu xiro experience ama sanado badan soo shaqeysay oo kale. qofkii in training yar la siiyo baa lagaga maarmi karaa waayo wax kan xirfadeedii buu leeyahay waa soo bartay keliya wuxuu u baahan yahay training yar oo kale in la siiyo kale. marka waxaa ka mid ah caqabadihii ugu waaweynaa experience baa ka mid ah. waxaa kaloo ka mid ahaa caqabadihii marka aan jaamacadda dhameeyey oo kale inaan fursad waayo oo kale. tusaale ahaan waxaan ka baxay arday accounting baan ahaa inaan yar yihiin deegaankeena ama shirkadi ama qof ay u baahan yihiin maadaama intaasoo ardada ay ka baxeen accounting ay ahaayeen tusaale ahaan oo kale farqiga loo baahan yahayna uu wax yar ahaa ama waxa loo baahan yahay ama qof uu ahaa. marka waxaa yaraatay fursadihii lasoo dhejinayo oo kale oo ku habboonayd qofka skillskiisa special isaga u ahayd. marka taas oo kale ka mid ah. waxaa kaloo ka mid ah waxa ugu weyn uu yahay corruption inuu jiro oo kale. waa corruption waa saameynta ugu weyn baan oran karnaa oo Soomaali oo dhan haysata. marka caqabadaha ugu waaweyn buu ka mid yahay runtii corruptionkaasi in ardaygu isagoo xirfadii leh laga doorbido qof kale oo aan xirfad lahayn. tusaale ahaan hadduu mar waxa dhacday oo kale imtixaan baa lasoo dhejiyey oo kale. imtixaankii markii lasoo dhejiyey ardaydii waa wada galeen. imtixaamka ardaydii ugu sarreysay lama qaadan hadhow imtixaamkii gadaal lagama soo celinba qof baa laska qaatay keliya. marka waxaa ka mid ah corruption oo kale in wixii la musuqmaasuqo. aad baa umahadsantahay cabdirasaaq. haddana khatro doctoresa khatro waxaa nooga warantaa 2 daqiiqo adoo kusoo koobaya caqabadihii aad la kulantay shaqo la-aanta waddanka jirta markii aad jaamacad dhamaysay. بسم الله marka hore wayna salaamaya dhamaantiin magacaygu waa Khadar Imaan Xuseen dhamaysay jaamacadda Boosaaso qaybteeda medical labka. haddii aan wax yar ka sheego caqabadihii aan la kulanay waxa weeye intii aan shaqo raadiska ahayn runtii lama soo koobi karo caqabadaha haddii la dhaho arday fresh ah caqabadaha uu la kulmay ha ka sheekeeyo
laakiin waxaan ka taaban doonaa bentiyada ugu muhiimsan. kow ardayga markuu fresh yahay oo dee jaamacaddii aad dhamaysay is dhahdii shaqo raadi, oo waxa kaa hor imaanaya horta waa experience. ardaygii dee waxaa lagu qaadanaya qofka inuu experience leeyahay. ma jirto arday jaamacaddii fresh hadda kasoo baxay horta inuu experience leeyahay. sidoo kale waxaa jirta in laga doorbidayo ardayda dalka jaamacadda ku dhamaysay ardayda badanaa kasoo baxay dalka dibaddiisa. taasi waxay ku noqon kartaa ardayda caqabad, waayo way ka fursad helitaan badan yihiin ardayda dalka dibaddiisa wax kasoo baratay iyo dadka kuwa dalka gudahooda wax ku bartay. runtii waxay ahayd caqabado aad u waaweyn aan kaga kulano, maadaama marka la dhaho jaamacadda dalka kasoo dhamaysay waxaa lagaa doorbidayaa qof kaloo maxaan ku rahday dalka dibaddiisa kasoo dhameeyey. haddana way yar tahay saas ay tahayna in shaqo lagu helo. maxaan ku rahday qofkii isagoo waxyaalo badan isku dayay inuu horumar sameeyo, haddii aad imtixaan gashi waxyaalo badan aad qabatid way yar tahay fursadda lagu helayo shaqada. taasna waxaan u sabayn karnaa kolleyba waddankeena aysan ka jirin waxa weeyaan wax nidaam oo kala soocan oo dee ardaydii ay ku bahalkaysan karaan shaqada ku heli karaan. intaas ayaan kusoo koobayaan. khadra waa mahadsantahay engineer hibaaqeye. caqabadaad la kulantay markaad shaqo raadisay maxaad la kulantay? asalaamu calaykum farwad dhammaan waan salaamaya. magacay waa Hibaaq Maxamed Yuusuf. waxaan kasoo baxay kulliyadda engineering communication engineering. horta caqabadii u horeysa aan la kulmo waxaa dhihi karaa shaqada marka la ragga iyo dumarka oo way ku kala duwan yihiin. wiilashan aad bay nooga fursad badan yihiin marka gabdhaha naga loo eego, iyo waxyaabo badan naga lagu tikoorayo ama caqabad nooga dhigayo. marka waxyaabaha aan la kulmo waxaa kamid ah oo kaleeto horta kulliyadda aan bartay oo xagga dumarka aad ugu yar tahay oo caqabadii ugu weynaad noqotay in kambaniyadii oo kaleeto waxoogaha halka waswaaska geliyaan oo dhahan shahaado la shaqeynayo kama shaqeyn kartid, shaqadan rag baa lagu talagalay. sidoo kale waxaa mas-uulka ah in faadhanadu ay shaqo la-aan noqoto. horta kambaniyada waddanka oo aad u yar oo aan badnayn, haddana iyagii oo yar haddana shaqadii aan ardayga aqoon lagu qaadaneyn. boqolkiiba boqol ardayda waxa lagu qaataa si qabyaalada. hadda aniga imtixaan aan galay oo kamid a kambaniyada waddanka aan u galay, imtixaanka anoo ku baasay haddana sugaya, haddana waxaa laga siiyey qof meesha macnaa qabiil ku yimi. waana midda asaasiga marka ardayga laga baxo oo kasoo baxo in la dhaho tolkaaga u tag shaqada ku raadiyaan. waa mid waxaan kamid noqotay aqoonta ardayda ka noqotay. aad baa u mahadsan tahay. adigaa ku wata Hibaaq, waxaan ku weydiinayaa ma la qabtaa khadro waxa ay sheegtay in ardayda jaamacadaha dibadda ah ka yimaada preferency ama tixgelin gaara oo ama laga jecel yahay ardayda jaamacadaha gudaha ah ka baxay. arrintaa ma la qabtaa inay sax tahay? wala qabaan. sababta keenaysa maxay tahay? sababta keenaysa waxaa la aaminsan horta aqoon dalkeensan aqoon badan. hataa ardayda iyadoon la isku fiirinayn haddii qof ajaanibiya uu yimaado oo shahaado dhihi sita iyo arday sita oo waddanka ka baxay waddan kale ka soo baxay in qof ajaanibiga la doorbido. sababta maxay tahay? sababtu waxay aaminsan yihiin inay naga aqoon badan inay ka aqoon badan yihiin. kalsooni darro inay dhalinyarada lagu ridayo oo dawladda iyo shirkadaha iyo hay-adaha yacni employerska dadka shaqada bixiya oo waddanka jooga baa fikradda aaminsan. waa fikradda aaminsan. okay, waan ka hadli doonaa arrintan, waynana falanqeyn doonaa. wiilasha waxaan rabaa inaan idin weydiiyo gaar ahaan jaamac. gabdhuhu waxa ay dhaheen shaqada waxaan kala kulannaa discrimination, cunsuriyad ama wax ku saabsan yacni wiilasha unba shaqada la siinaya, gabdhaha si gaara gees loo geliyaa oo shaqo lama siiyo. arrintaasi ma la qabtaan? run ma tahay mise waxaan jirin? horta waa dhici karaa caqabadaas oo wax jiri kara, sababtoo ah waxaa laga yaabaa in kamiliga qofka leh uu yahay qof cunsuriya. marka dalka cunsurinimadu waa ku badan tahay, ama qabiil ha lagugu diido ama sidaan kuu sheegay oo kale takoor bay noqonaysaa. marka takoorkay soo gelaysaa oo waddanka takoorka wuxuu ku yahay taf. marka wax jira weeye oo gabdhuhu shaqo la-aan baahsan waa ku haystaa waddanka, walow ay jidho in waddanka aysan shaqaba oolan. oo sida Hibaaq sheegtay waddanka waxaa ku yar resourciga ama kambaniyada shaqada abuura baa ku yar. waxaa laga yaabaa laba kambani, 3 kambani, 4 kambani waaweyn oo yar yar inay yaalaan. labada kambani ay u baahan yihiin kambaniyo u baahan in shaqo gacanta looga qabto oo mataqaanaa haad ah oo culus inay jiraan. marka cunsuriyad baa ka dhalanaysa meeshii. okay, jaamac waa mahadsan tahay. cabdirasaaq, ma la qabtaa gabdhaha ama ardayda hadda jaamacadaha soo dhameeyey caawa halka nala jooga qaarkood sida ay sheegeen in shirkadaha iyo dawladda iyo hay-adaha dadka shaqada bixiya ama meelaha shaqada badana ay kasoo baxdo loo doontaa ay aaminsan yihiin
ardayda jaamacadaha waddanka ka baxay inay ka liitaan oo kuwa jaamacadaha dibadda ka soo baxay ay ka fiican yihiin kuwa jaamacadaha gudaha ah ka baxay arrintaasi inay run tahay inay sax tahay inaan sax ahayn maxaad ka qabtaa bismillahi raxmaan raxiim boqolkiiba boqol waa ku raacsanahay inay u fahmeen iyagu muhiimaddu waa fahamka weeye waxay fahmi waayeen oo ay door bideen oo isleeyihiin qofkaasi uu ka tayo badan yahay qofka waddanka wax ku bartay waxay aamini laayihiin oo ay qalbadooda ama iska dhaadhicsi laayihiin in waddanka gudihiisa waxbarashada lagu bartaa ay tahay hay marka waxay door bidaan had iyo jeer dadka banaanka nooga yimaado ama banaanka wax kusoo bartaa marka waxaan isleeyahay faham ahaan waxay u fahmeen iyagu wax jira maaha laakiin waa waxay iyagu u fahmeen in qofku uu banaanka ka yimi uu ka aqoon badan yahay qofka waddanka wax ku bartay waana arrin khalad ah run ahaantii okay cabdirasaaq innaga oo toobiga ah aan weli ka bixinin ku jiro ku saabsan farqiga u dhexeeya ardayda jaamacadaha waddanka ka baxay sida hadda afartiina halka caawa nala jooga iyo ardayda jaamacadaha dibadda ka soo baxay arrintaas innaga oo niqaashkeedii ama discussionkeedii weli ku jira oo weliba anigu waxaan ka mid ahay dadka jaamacadaha dibadda ah ka yimi wax kusoo bartay malaysia wax kusoo bartay haddana muddo 7 sano ah waxaan macalinka ahay jaamacadaha waddanka ku yaala marka xog badan baan ka hayaa jaamacadihii dibadda ahaa iyo sidii wax looga baranay iyo kuweenna waan ka hadli doonaa arrintaas fikradeydana waan ka sheegi doonaa laakiin ka hor waxaan rabaa afartiinaba qof walba 2 daqiiqo isagoo kusoo koobaya aniga oo ku bilaabaya khatra maadaama aad tihiin ardaydii ka soo baxay jaamacadaha waddanka ku yaala gaar ahaan puntland in aad bulshadana daawanaysa oo ay ka mid yihiin dadka aad shaqada u raadsanaysaan ama u raadsateen ama beri shaqada aad ka rabtaan oo ay yihiin oo ka mid yihiin shirkadaha ay ka mid yihiin dowladda puntland ay ka mid tahay dowladda soomaaliya ay ka mid tahay hay-adaha shirkadaha privateka loo leeyahay hay-adaha governmentalka iyo non governmentalka kuwa dawliga iyo kuwaan dawliga ahaynba waxaan nala wadaagtaan aad halkan uga caddaysaan waxaan rajaynayaa ama aan ku kalsoonahay inay ka mid noqon doonaan dadka daawanaya idin maqlaya inaa u caddaysaan arrintaas sidii caawa idinkaa laydinka rabaa loo caddayn lahaa inaydinaan waxba farqigi idin dhexayn ama idinku aa fiicantihin ama aa simantihiin idinka iyo dadka jaamacadaha dibadda wax ka soo barta tacliintuna ay tacliin tahay oo halka waxaad ka barataan aysan jirin sabab kuwaa laydinkaga tixgelin la siiyo kuwaas oo idinka la yidhaahdo gudahaad wax ku barateen tacliintiinu ma xoogane kuwa dibadda ka yimaa fiican khadro anoo ku bilaabaya arrintaas u caddeey bulshada iyo shirkadaha iyo dowladda iyo dadka shaqada bixiya inaan wax farqiga idin dhexayn noo sharax inaad u caddaysa arrintaa la rabaa bismillah haddii aan arrintaa waxa weeye in yar caddeeyo ardayda jaamacadaha dalka ka baxay iyo kuwa dibadda ka yimi horta wax farqiga uma dhexeeyo aqoon waa isku aqoon laakiin dadka waxa weeye bulshadeena iyaga aaminay oo waxay aaminay ardayda tan inay kala aqoon sarreeyaan tayada waxbarashadeena sidee tahay tayada waxbarashadeena cilmiga horta waa isku wada mid cilmiga waxa weeye waxa la wada qaadanaya waa cilmi hadduu dal jooga iyo hadduu dibad jooga waa isku cilmi waad dhiganaysaan laakiin waxay tahay tayadoodii ardaydii way kala aamineen dadku waa isku tayo waa isku waxqabad haddii meel la wada geeyo hadda kasoo qaad shirkad haddii la wada geeyo labada isku seen bay uga shaqaynayaan waxaaba laga yaabaa kan dalka wax kasoo bartay inuu ka shaqo fiican yahay kan dalka dibadiisa ka yimi haddana saas way tahay waa caqabad taagan weli aan loo helin xal waxay tahay caqabadaas xalkeedu ardayda in la tijaabiyo oo la eego si u wada shaqaynayaan iyo aqoontoodu waxay taagan yihiin isku heer bay taagan yihiin wax kale oo different uma dhexeeyaan haddii aad eegtay shaqo ahaan waxaan aqoon ahaan wax kasta waxay taagan yihiin same laakiin waxaan leenahay bulshada waxay aamineen inaysan dalkeena aqoon hibaaq hadaan mawduuca ka hadlo horta waxaa misalaysa wax farqiga u dhexayn sidoo kale ardayga intaana isaga la egutu ka yimi aqoontiina ku xiran tahay oo 70% aqoonta laydin baray oo jaamacadaha waddanka ku yaala ay idin bareen waa gaarsiisan tahay baad leedahay aqoonta dibadda way gaarsiisan ilaa xad si fiican ilaa xad si fiican way gaarsiisan marka dad u diyaarsan waa tihiin oo kuwaa la tartami kara laakiin shirkadaha iyo dowladda iyo hay-adaha waxaan uga baahannahay waxay tahay in lagu kalsoonaado oo stereotype baa la yidhaahdaa falsafadan khaldan ee ku jidha suuqa inay khalad tahay laakiin ardadu ay tacliintoodu fiican tahay arrintaasna rabnaa inaan gudbino waana ku kalsoontahay tacliintiinu inay tahay tacliin wanaagsan aad baa umahadsan tahay jaamac horta waxaa muhiim in la sheego maxaan baranaa
markaan joogo soomaaliya waxaan wax ku baranayo waa luuqada ingiriisa ninka jooga hindiya ama bakistan ama mataqaanaa suudaana luuqad yar oo wax loogu sharxo laakiin wax ku baranayo buug baranayo ku qoran tahay waa luuqada ingiriisa therefore waxa anugu dhigtay isku buug baa wax ka dhiganay waxaa laga yaabaa buugga manhaj inuu yahay oo nin qoray buuggii anugu akhrista isna uu akhrista waxaa laga yaabaa in anugu akhris fiicanahayo therefore xog ka fiicanna waaba hayaayo anugu dalkan jooga duruufihii dalkaad og tahay tacaamilkii dadka sida loola tacaamulaya dalkan wixii baan la socdaa xogta waan la socdaa exactly waxaa laga yaabaa creativity ka fiican creativitygaas iyo mataqaanaa meelo uga fiicnay companiga oo resource kale ugu jira ay ka faa'iidaysan kareen inaan usoo saari karo marka therefore waxaan aaminsanahay inaan anugu ka tayo fiicanahay laga yaabay waddanka waxyaalaha qaybtooda inuu dhaho ardaygu qofka waxa practical uma soo arag waxa uma soo waxaysan laakiin muhiimadda waxa weeye conceptiga ma haysaa cabdirasaaqi sunaga ka yimi wuu ka taya sarreeya ardayda gudaha horta waa khalad weeye oo cid caddaysayo inta laba arday intay meel keentay tayadoodii intay isbarbar dhigeen soo saaray kii guulaysa horta ma jidho laakiin waa falsafad khaldan oo ay dadku aamineen waayo maanta adduunku waa develop buu maray waa horumaray meel kasta isku jaamacadii isku casharada wada bixiyaan hataa qaar curriculumka ay bixiyaan baa isku mida ama wax yar ku kala duwan marka ma jiri kardho sabab loo yidhaahdaa ardaygaas ardayga gudaha uu ka taya sarreeya keliya waxaa jira faham darro iska dhaadhiciyeen dadkii bulshada ahaa oo xoogaa tukor yar ay sameeyeen ardaydii gudaha ku jidha gudaha wax ku bartay marka waxaan aaminsanahay inay qalad weyn tahay taasi aanayna jirin karti dheeraad ah iyo falsafad dheeraad oo lagu aamina aad baa umahadsan tahay topigan farqiga u dhexeeya ardayda waddanka wax ku baratay iyo ardayda ku baratay waddanka dibaddiisa innagoo halkaa kaga baxayno soo xirayna ayaan waxaan doonayaa horta marka koowaad inaan caddeeyo hal qodob oo waxa uu yahay barnaamijkan kuma saabsana ama qorshihiisa iyo ajendaha iyagu ma aha in aan tartan siino ardayda jaamacadaha waddanka wax ku baratay iyo kuwa dibadda wax ku bartay inaanu nidhaahno kuwa gudaha ku jiray ayaa fiican ama kuwa dibadda ku jira ayaa fiican annaga hadafkaygu waxa weeye ama dibadda wax ku baro ama dalka gudihiisa wax ku bareen dhalinyaradu sidee bay shaqo u heshaa sidee baa shaqo abuurka loo siyaadayaa sidee baa dhalinyaradu haddii waxa ay barteen shaqo ku waayaan ee waxyaabo kale iyagu naftooda ugu abuurtaan shaqo ay ka helaan kadibna iyagu ay dad kaleba u shaqaalaysiiyaan balse doodani dabcan dooda gudaheeda waxay ka dhalatay maadaama afartiina arday yihiin arday waddanka gudihiisa wax kusoo bartay su-aashii ku saabsanaa caqabadaha waddanka aad kala kulanteen markaa wax barateen kadib bay ka dhalatay jawaabtiinii marka toobiga halkaas aan uga gudbaayaan hadda waxaan rabaa inaan u gudubno toobig kale oo ku saabsan fursadaha waddanka ka jira dabcan waddanka horta waxaan ognahay shaqadu waa yadhax oo isku raacna arrintaa sababtoo ah waxaa dhici karta hadda bishii ama sanadkii shaqada soo baxdaaba inay wax yar oo aanba 100 ama 200 gaarin qof dadka qalin jabinayana ay runtii aad u fara badan yihiin oo weliba gudaha isbishaal hadda baan arkaa inta badan ama jaamacadaha maadaama ay waxbarashada ku dhex jiro ardayda kasoo baxaysa ha badan tahay marmarka qaar hadda waxaad arkaysaa haddaad fiiriso shaqo markii lasoo dejiyo 200-300 qof baa hal boos u tartamaya taasoo dhan waxay ku caddaynaysaa shaqa la'aanta jira okay marka hal mid waxaan ognahay systemka dowladeed ee waddankeena ka jira hadduu ahaan lahaa mid dowlad goboleed iyo hadduu ahaan lahaa mid central governmentiba wax lagu eedeyn karo maaha sababtoo ah waddan waxaan nahay burburay oo burbur kasoo kabanaya muddo 30 sano ah resourceska ay dowladuhu haystaan heer dowlad goboleed heer federaalna waa yaryahay sideedaba nidaamka dowlad markii la yiraahdo dowladdu markay asaasmaysay fursado badan tahay laakiin mar hadday asaasantay dadka shaqaynaya already waa dad mar hore galay waxa soo baxayaana waa wax yar laakiin waxaan rabnaa waxay tahay fariinta halka gudbinayno in dowladda Puntland iyo dowladda federaalba mid ay doonto oo barnaamijka dhageysanaysa ha noqotee sidii shaqo loo abuuri lahaa dhalinyarada shaqo loogu abuuri lahaa kor yani barnaamijyo shaqo abuura ay u samayn lahaayeen in arrintaas maaragtay ay ku dadaalaan laakiin markii laga yimaado dhinaca dowladdu inay dadka dhalinyaradu shaqo abuur u samayso idinka dadkiina wax bartay waxaa jira wax badan oo fursadaha waddanka jira oo especially dadkeena deegaanka ah hadda gaar ahaan iyo Puntland iyo dadka wax barta iyo kuwan wax baran aysan ka shaqayn oo aysan isku dayin inay maaragtay shaqo ka abuurtaan laba waxyaabood baan ka hadli doonaa oo jira mid waa small business
ganacsiyo yaryar oo qofku uu abuuran karo kuwana waxaa jira waxa la yidhaha farsamada gacanta oo qofku uu baran karo tusaale ahaan farsamada gacanta waddanka innaga hadda puntland iyo boosaaso ayaan joogno waxaa jira ranjiile waxaa jira tuubiste waxaa jira korontiste waxaa jira farayaamada oo noocyo badan ah waxaa jira tailoring oo kharkhaankii waxaa jira hospitality oo hoteelada iyo makhaayadaha intaaba dhalinyaradii kama shaqayso oo shaqo uma doontaan tusaale ahaan hadda adiga oo dhameeyey degree engineering adoo dhameeyey degree medical lab ah iyo engineering iyo commerce ranjiilaad noqon kartaa tailor baad gabdhaha furan kardhaan maxaan ku yidhaahdaa oo aad baran kartaan korontistaad noqon kardhaa tuubistaad noqon kardhaa hadda haddaad fiiriso tuubistaha iyo korontistaha iyo maalinta inta lacag ay sameeyaan iyo sida loo raadinayo you cannot imagine waxaa jira small business ganacsiyo yaryar oo iyagana sida Adobe quality la qofka hadduu furto ceeb maaha Adobe quality wuu furan karaa waxaa jira grocery dukaamada iyo sandaqadaha iyo xaafadaha laga furto waxaa jira timajarayaal oo adigu intaa furto dad ka shaqeeya aad u dhiibayso laba timajara haddaa furdho habeenkii midba 10 kusoo diro $20 $20 maanta aad joogto Boosaaso ama Soomaaliya habeenka dib ku xiro oo adigu aad waxba qabanin lacagta kaa gelaysana midkii $1 aad ku furi karto ama $2 wax ka yar 3,000 iyo ama 4,000 aad ku furi karto labada doobiga labada timajaraba waxaa jira gabdho oo kaleeto bakariga rootiga keeg la sameeyay waxaa jira sambuus waxaa jira bajiye waxaa jira waxyaabahan macmacaan oo dhan warshad yar oo samaysa ama meherad samaysa hadda magaaladana Boosaaso inaga kale dhibaatada aad la kulmayso waxa kamid ah dadku 3 waqti buu xunaa quraacda qadada iyo cashada wax u dhaxeeya ma jiraan qofku markuu qadadii 12 duhurnimo ilaa 1 cunay oo uu 8-9 habeenimo ama 1 saac habeenimo casarkii markuu joogo galabtii maqribku waa gaajaysan makhaayadii markaa tagto meel walba sambuus ma helaysid bajiye ma helaysid mashmash ma helaysid kacagac ma helaysid waxaas oo dhan ma helaysid waxay ahayd u dhaxayo cuntooyinka waaweyn oo in la cuno meherad samaysaa ma jirto qof samaynayo oo gabdhihii iyo wiilashii waxyaabaha ka ganacsan karaana ma jiraanin oo isku dayay marka hal arrin baa khalada oo rabnaa inaan ka hadalno waxay tahay jaamacadda waxa aad ku shahaadada aad qaadatay hadda shaqo ku weydo fursadaha waddanka ka jira oo kale oo farsamada gacanta ay ka mid tahay small businesseska hadda waxaa jira bangiyada xataa oo bangiga Salaam iyo bangiga Amal iyo ay bixinayaan deymo ay ugu talagaleen dhalinyarada jaamacadaha dhameeyay oo ay ku siinayaan oo aan qaarkood waxaan u malaynayaa inaan interest lahayn oo gabdhaha kuwa u gaaraa jira oo hadda Amal oo kale iyo bixiyaan Salaam iyo waxaasoo dhan waa ka faa'iidaysan kartaa oo graduateska dadka qalin jabiye loogu talagalay marka dhibtu waxay ka jirtaa fursadihii way jiraan dhaqaalihiina saan sheegay bangiyada iyo wad ka heli kartaa laakiin inaga dhalinyaradii oo waxay rabtaa mar walba inay high profile sideed u socoto sidii qof sareeya ama soo xaafad uga soo koray ama yani high profile life noo sareysa uu raadinayo ku socdo inuu shaqo hoose qaban okay arrintaas waxaan rabnaa marka inaan toosh ku ifino oo focus ka saarno in dhalinyaradu ay shaqo abuurtaan waxaan ku horeynayaa jaamac maxaa jaamac kuu diiday mase isku dayday inaad small business ganacsi yar furato ama aad farsamada gacan wax ku saabsan aad ku shaqaysato horta alxamdulilah rabbil caalamiin anigu waxaan u malaynayaa inaan ahay qof inta soo maray korontada kusoo shaqeeyey small business waa furta maasha allah very good waxaan aaminsanahay hadda shaqooyinka dhalinyarada u ordaan oo kale in ay ka fursado fiicanta fursadada gacanta iyo shaqooyinka kale yar exactly sababtoo ah waxa laga yaabaa bishii inuu ku xisaabtamo $500 $300 $200 waddanka $500 ugu badan markaad kamil u shaqeynaysid marka waxaan ka xusuustaa korontada hadda ka hor waxaan malaynayaa years ago bay ahayd baan ku shaqeyn jiray marka one month waxaan xusuustaa xareeyay $300 aysan shaaxiga iyo waxayga iyo isku jirin dharka iyo waxa isku jirin waa xareysta oo meel dhigta marka dhibaatada waddanka jira aniga waxaa weeye hadda aan sheegno shaqa la'aanta la sheegayo waddanka shaqa xafiis ma fariisan waddanka banaaneen laakiin shaqooyinka kale waddanka waa noo banaan yihiin maxaad isugu dayi weydeen mase isku dayi weyday su-aasheedu in arrimahaas waxaan aaminsanahay in dhalinyaradu horta shaqa la'aanta la sheegayo horta aniga waxaan aaminsanahay shaqa la'aanta waa labo mar waa psychological marna waa physical wax loo jeedo dhalinyarada reer Puntland marka la keliyaba marka dhalinyarada waddanka intiisa kale laga tago dhalinyarada reer Puntland shaqa la'aanta haysa waa psychological shaqadii bay yarayd oo hoos oo dhan ma rabaan inay qabtaan Roma maalin laguma dhisin exactly qofku waa inuu soo jabaa waa inuu business yar soo abuurtaa waa inuu mataqaanaa
mataqaanaa shaqo gacmanta ka soo qabtaa waddanka marka dhibaatada keentay waxay tahay anaga jaamacadaha waxay u dhisan yihiin hab ah in qofka la baro maskaxiyan wax loo dhisay aan technical ahaan loo dhisin waa mahadsan tahay cabdirasaaq ma isku dayday inaad small business furato ama aad farsamada gacanta wax ku saabsan aad barato oo aad ku shaqayso bismillahi raxmaan raxiim marka koowaad horta farsamada gacanta waxyaala badan baan ka barbartay laakiin targetka ma sii saarinaan waxaa iina diiday oo saameynta weyn ugu yeelatay bulshadeenu inta badan bulshadeenu societygeenu qofku hadduu jaamacad ka baxo bulshadii way takoortaay tusaale ahaan qofku hadduu jaamacad ka baxo oo uu shaqo yar qabto takoor buu kala kulmaaya ama waxaa la oranaya in shaqada ma qalmato maxaa saa u samaysay maxaa saa u samaysay alxamdulillah horta anigu waa ku guda jiraa yani bulshadiina naftiisa uu dareemayaayo bulshadii qof jaamiciya baa tahay dadkiina hadday saa ku dhahaan war wax maxaa qabanaysa qof jaamiciya tahay laakiin tan aan rabno waxa ay tahay dhalinyarada wax barata iyo bulshaduba inay fahamto shaqo inay shaqo tahay qofku eeg hal wax baa muhiima qofku sida uu bread winning baa la yidhahdaa qofku rootigiisa inuu ku guuleysto suu heli lahaa wuxuu doonaa suu doona ku helay oo shaqooyin kasta ha qabtee hadda waxaa jira wadamada kale mujtamacaadka kale dad eegto africa india asia nin PhD ama master baad arkaysa intuu shaqo raadinayo taxi buu wadaa hadda inaga waxaa jira waddanka shirkadda dhaweeyo kale qofku hadduu gaari yar gato maalintii dhan ku shaqaysan karo makhaayad bay ka shaqeeyaan cavalieri dadka cunada u geeyaan hoteelada ka shaqeeyaan macnaha waxa weeye nolosha inay socotaana istaagin qofki inuu mashquul yahay nafsiyan sideedaba waxaa jira qofku hadduusan shaqayn nafsiyan buu u dhimanayo oo uu meel fadhiisto oo waxba qabanayn naftan waa energetic cunaa cunaysa waliba shabaab markaa tahay dhalinyaro ah waxu baahan tahay inaad shaqayso therefore subaxdii inuu wax u kaco noloshiisa wuxuu ku maareeyo iyo reerkiisa soo helo shaqo waa sharaf kadibna fursaddu iyadaa timaada waxaa khasab oo la og yahay qofku wuxuu barto maalin inuu fursadeeda u helayo marka laakiin waxaa muhiimaddu tahay waxaan dadku ka hadlayaa nin macno ma leh iska tuuro muhiimaddu waxaa weeye noloshaada inaan istaa intaa shaxaatan ama meel fadhiisan lahayd waa inaad korontiisto kusoo shaqaysa adoo injineera oo shahaada master adoo sita korontiisto kusoo shaqeey mukayfiyada soo hagaaji eesiyada cameramaannimada waa la bartaa ku shaqayso sida tv-gan oo kaleeto maalinta waxaa haysaa soddonkaaga labaatankaaga noloshaada ma istaagayso faamilkaaga waxay ku noolaanaya nolol habi ah adigana waddankiina waa jeclaanaysaa noloshaadan stable u ahaanaysa qofkuna sidiisa waxaa la yidhahdaa hadda purchasing powerka awoodda wax iibsiga ee suuqa dadka inta shaqeeya ku xidhan tahay innaga laakiin dhibta waxay jirtaa waxaa guriga 10 qof joogo hal qof baa ka shaqeynaya halkaasaa lagu nool haddii guriga 10 qof ay joogaan ugu yaraan 5 ama 6 7 ay shaqeyn lahayd 5 iyo wax ka 7 iska badaa baad disha bad bay aan wax iibsi waa badan lahaa dhaqaalaha waddanka money circulation ka suuqa waa badan lahaa qofkuna productive buu noqdaa masalan adiga reer baa ka dhalato waxbay ku baran waa koriya maalintaa wax soo saarto dhaqaale abuudho oo aad shaqayso lacag ku soo gasho familkaa waxba ku celinaysa qaaraanka waa bixinaysa xataa reerka ay qabiilka waxu kaa faa'iidayo laakiin nimaan shaqeyn hadda qaaraan laga roo qaado waxba laga meli productive maaha qof wax soo saaraya maaha waalidkaa wax ku celinaysaa marka muhiimaddu waxay tahay waa shaqada inuu qof ku shaqaynayo laakiin khatar hay isku daynay inaad wax farsamo gacana ama aad ka shaqayso ama small business approach maxaase isugu dayi weyda haddii aad maaragta aada isku dayin hadda kahor horta haddii aan isku dayo waxa weeyaan shaqadaas horta weli waxa weeyaan maanan ku shaqaynin oo dee fursadaha waxa weeyaan businesska yarka inaan ku shaqeeyo laakiin hadda waxa iga buuxaya inaan bilaabo aan ku shaqeeyo maadaama aan soo arkay dee inaan wax soo bartay oo shahaadadii aan soo qaatay aanan shaqo ku helin waxay dantu hadda igu khasbaysaa inaan bilaabo aan ku shaqeeyo sababta aan ugu shaqeyno waxay tahay markii hore de wax isla arday wax bartay baa tahay waxaad shaqo ku helaysaa waxa weeyaan jaamacad aad soo dhamaysay shahaadadaada hadda waxay ii caddaatay inaanan dee shahaadadii aan hadda shaqo kusoo helay laakiin businesska yarka aan bilaabo mahadsan tahay hibaaq tahay horta waxaa dhihi karaa tan ah arday maxay dhalinyaradu ugu shaqeyn waayeen shaqooyinka hoose kuwa kalsooni daraa ka koob ah sidoo kale caqabada bulshada kala kulmaan ardayga markuu jaamacadda dhiganayo waxaa ku abuuray markaad jaamacadda dhamaysid waa inaad kabin u shaqaysaa total ahaan bay ugu abuuran tahay dee hadda qof soo bartay haddaan dhaho shaqo yar baan ku shaqeynayaa marka u horeysa waxaa laga yaaba family dhibaatada in family iga bilaabto oo dee macnihii xoogaa lagu taageeri waayo marka ardayga markuu arko taageero la-aan inuu ka helo inuu ka niyad jabo iyo ardaydu yaan aaminsanayn doo qofku markuu wax ku shaqeyn skills u leeyahay markaadaan aaminsanayn shaqadii oo kaleeto hada anigu hurna isku macna geyin aan dhihi karana waxay ga dhadhacsanayd qof wax bartay baa tahay shaqadaana ka shaqaysan maahan
taasoo sabab ah muxuu ahaa populationka igu hareeraysan oo dee markaan lagu taageera taageero lagu siinayn ana aadan aaminsanayn shaqada kuu suurtoobi maysa aynan waxaa noqonaysa kuna noqonaysa waxaan suurtagal lahayn oo qofkii iska fadhiyo inuu shaqo sugo inta shaqad kasoo baxaysa ama kambani aad baa umahadsan tahay barnaamijka anigoon doonayo inuu waqti dheer qaato oo waqti kooban uusan ka badan qodobka u dambeeya baan u gudbaynaa waan ka gudbi doonaa laakiin waxaan rabaa inaan ku darsado wax yar sida hadda hibaaqa u dhameysay ardayda dhalinyarada qaarkoodna ay sheegeen stereotype-kan yani qofki ama isaga cugdad ku jiro qof waxbaad baratay shaqooyinkaa hoosaa ka shaqeeya iyo bulshadii oo dhehaysa war intaasaas wax baranaysay qof jaamici iyo shahaado jaamacadaysta baa tahay waxyaabahan maxaa u qabanaysaa inay arrintaasu khalad tahay horta waa isla fahanna sooma arrintaas inay khalad tahay sababta waxa weeye sideedaba waxaa la yidhaahdaa shaqada qofku uu u shaqaynayo cid waxaa ka fiican shaqada isagu shaqaysto kow timeka horta flexible waxaa tahay oo waqtigaagu flexible yahay markaa rabtana bixi kadhaa fasax aadi kadhaa safri kadhaa maalin seexan kadhaa maalin soo kici kadhaa markaa adigu iskaa u shaqaysato laakiin haddaa shirkad u shaqayso company u shaqayso waxaa dhici karta inaad qaadato kaba soo qaato $700 ama ku door hadoo qaadato qof laakiin qof xirxiran baad sanadkii bil waxaa leedahay fasax ah waxaad leedahay boss ama cid madax ku ah haddii doonto ciddaas madaxda ku ah waxay ahaan kartaa abusive ama abuser qof oo maaragtay dadka cadaadiya oo cadiba oo dhibaateeya waxaa dhici karta inaad barashar kala kulanto oo 5 daqiiqo 10 daqiiqo haddaad soo daado canaan iyo dhibaato iyo ganaax aad la kulanto waxaasoo dhan marka inta aad mari lahayd waxaa dhici karta maanta haddaad tuubiiste ama aad noqoto faryaamiiste oo alwaaxda iyo sariiraha iyo samayso faryaamadu noocyo badan bay leedahay haddii aad waxyaabaha aan sheegnay bakeriga iyo sandwicheska iyo keegaga iyo la sameeyo aad samayso ama small business dukaan aad furato yani inaad lacag ka badan 3 jibaar 4 jibaar cidda business ciddaad u shaqayn lahayd ka badan inaad hesho adiga ay kusoo gasho therefore noloshaadina ay socoto laakiin fiiri adiga haddaad tiraahdo wixii aan bartaan wax ku sugaaya 5 sano haddaa wax la adaas 2 sano haddaa wax soo khasaaro ma meel cid laa fadhido laakiin $30 maalintii samayso oo faryaamiiste ama tuubiiste aad tahay ama saxiimad xataa ninkii badda u qaata oo kalluunkiisa intuu soo dabto barta ya maxaan ku idhahdaa iibsada maalinta $50 fayle okay marka waxaan rabaa daawadayaasha inaan la socodsiiyo barnaamijkan Hano Academy iyo Sahal Cable TV waxaa jira barnaamijyo isla qaban doonaan oo ku saabsan fursadaha waddanka ka jira oo marba aan muujin doono maalinba meel tegi doono oo aan ka hadli doono soo wareysan doono soo bandhigi doono fursadaha masalan faryaamiistaha fursadaha tuubiistaha fursadaha kalluumaysiga badda ka jira small businesses ka yaryar oo waddanka ka jira maxaan ku idhahdaa doobiga bakeriga yani anything adigu cilmi waxaan ku samayn doonaa baaritaan iyo xog ururin waxaa jiri doona marba barnaamij aan soo dayin doono oo aan kaga hadlayno fursadaha waddanka ka jira qodob ku saabsan ama barnaamij ku saabsan ugu dambeyntii barnaamijka inagoo soo xirayna waxaan rabaa inaan ku horreysiiyo cabdirasaaq maxaa cabdirasaaq tala soo jeedin ah oo aad u soo jeedin lahayd dadka shaqada bixiya employerska hadday ahaan lahayd shirkadaha gaarka loo leeyahay hay-adaha dawliga ah iyo kuwaan dawliga ahayn dowladda Puntland dowladda Soomaaliyeed kulligoodba meelaha ay dhalinyaradu shaqada u doontaan in ay tallaabooyinka ay tahay inay qaadaan si shaqo la'aanta waddanka dhalinyarada haysta wax looga qabto tala soo jeedintaada way ugu dambaysa tala soo jeedinteeda koowaad kow inay ka dheeraadaan waxaan la yiraahdo eexda la yiraahdo ama corruptionka la yiraahdo waa masiibada ugu weyn runtii oo dhalinyaradeenna ku habsatay sababtay shaqo la'aanta sababtay inuu dhaco isku dagaalo sokay xataa ay dhacaan oo qofku markuu bilaashamo noqdo waxyaalo badan ku fikiro waxyaalo khalad oo ku dhaco marka tan koowaad waxa weeye inay iska daayaan waxyaalahan lagu yiro corruptionka ama eexda tan labaad waxa weeye inay ku kalsoonaadaan oo qofka tusaale ahaan markuu jaamacad ka soo baxo oo kale soo firesha aan lagu xirin arday experience ama intaas oo sano ma soo shaqaysay waa caqabad kale oo weyn oo ardayda marka jaamacadda dhamaysay runtii hor istaagta taanaaleho cabdirasaaq adaa kuwa taan ka dhexgalay taasi waa shaqooyinka hadda jira iyo caqabadaha dhalinyaradu badan ay kala kulanto jaamacadaha dhameeyay waxaan rabnaa hadda waxay tahay tala soo jeedinta inay ku saabsanaataan kusoo xiraynaa
maxay tahay inay sameeyaan dadka shaqada aad u raadsanaysaan sida shirkadaha iyo dowladda iyo hay-adaha iyo maxay tahay inay sameeyaan si shaqada hadda numberka shaqada ee jira loo kordhiyo shaqo badan loo abuuro oo masalan shaqo abuur fara badan inta la sameeyo dhalinyaradu ay shaqo hesho maxay tahay tallaabooyinka usoo jeedinaya inay ku dhaqaaqaan tallaabadaan usoo jeedin lahaa waxa weeye inay sameeyaan expansion oo kale haddii ay awoodaan oo kale ay isballaariyaan ama xarumo kale sameeyaan ama adeegyada ay fidiyaan oo ballaariyaan oo kale si halkaa cadad badan oo bilaa shaqo ahaa ay u helaan shaqo marka taasaan oran lahaa hay jaamac horta dhibaatada sidee shaqo badan lagu abuuri abuuri karaa karaa si shaqo la-aanta jidha wax looga qabto waddanka waxaa jira kambaniyo lacag haysta oo jooga ganacsato lacag haysata dowladda oo lacag badan igiis haysta laakiin lacag haysta joogta marka dhibaataya mataqaana talada koowaad waxa weeye in qofka lacag haysta ama kambaniyaasha lacagta haysta ay abuuraan warshado waddanku wuxuu u baahan yahay hadda waa warshado total waddanka hadda wax warshado mala istikiinka weyn oo nala soo dhoofiya markii warshado la abuuro oo bagaashkeena oo dhan dibaddu ka yimaado haa warshadaha weliba problemka inaga jiraa waxay tahay waxaa moodaa xoogaa hal abuur inaanu jirinoo laysku wada dayanayo warshadahu biyo bay keeneen waddan wax kale ma samaynayaan waa inay masaamiirta sameeyaan istakiinkay sameeyaan alwaaxyada waa in loo sameeya kabaha dacaska waxyaaba yaryaroo caagaga yani all bagaashka badankiisa hadda inaga dibaddeena kala nimaana waa nasiib daro talada koowaad waxa weeye in dadka lacagta haysta waddanka jooga inay creativity sameeyaan warshad wax abuudha oo dhalinyaradu ka shaqaysato sababtoo ninka dhalinyarada hadduu dee shaqo helayo waa shaqaysan lahaa very good point khadro haye bismillah la soo jeedinteeda waxa weeyaan shirkadaha iyo dowladda Puntland iyo tan Soomaaliyeed inta waxaan leenahay in shaqo abuur dhalinyaradii loo sameeyo kow waxa weeyaan horta in waxaan ku rahdaa shaqo abuur la sameeyo de shirkado la sameeyo sida maalgelin la sameeyo kale si ardaydii soo baxda ay shaqo u helaan laakiin haddii lagu soo koobnaado la dhaho dee intii xafiisyadii intii yareed ee furnayn baa shaqo lagu tartansiinaya intaas way soo xirmaysaa marka waxaan kula talinaynaa in waxa weeye la ballaariyo wax soo saarka la isku dayo in xarumo la sameeyo la isku dayo in maxaan ku rahdaa dhulkeena wax dhaqaalada waxaa jira waxyaalo khayraad badan oo leeyahay aan laga faa'iideysan sida in khayraadka laga faa'iideysto warshadaha hadda kalluunka oo kale waxaan moodaa dee kalluunku waxyaalaha ugu badan ee dalkeena laga helo uu qaniga ku yahay in warshado kalluun la sameeyo maxaan ku rahdaa dhulka beeraha oo kale in waxa weeyaan dowladda iyo iska kaashadaan ee shacabka iyo ganacsatadu intaba waxa weeyaan sidii dhaqaale loogu sameyn lahaa oo dadka waxa weeyaan looga dhig lahaa shirkado cusub loogu soo saari lahaa halkaa waxaa ka muuqanaysa goorta in dadkii dhalinyaradii shaqo la-aanta ahaa ay ka helaan fursad shaqo ay ku abuuri karaan dhibaaq aye noo soo koob horta koowaad waxaa weeye in horta fursadaha shaqada u yaraadaan ay kamid tahay in dowlad ay aada u yar yihiin shirkadihii oo kale in la badiyo oo ay shirkadihii wataan sidoo kale waxaa kamid ah in ardayda markii hadda oo kale shaqada soo dejiyo fursadaha shaqa ardayda in lagu siiyo aqoon oo ardayga aqoon lagu dooranayo markii ardaydadii aqoon lagu qaato ama dadka wax soo bartay shirkadii way weynaanaysaa waana sababta waa maanta in shirkadaha dalkeena ay adduunka weynaha u gudbi kareen waxaa shirkadaha caalamiga waxaa jira oo waddanka asaasmay laakiin wadamada kale u gudbaa iska daa wadamo kale anaga dhexdeena wax laga yaabo inaysan shirkadu kusii kordhi kareen sababna u tahay inay tayo lagu qaadan dadkii aad baa umahadsan tahay waa mahadsan tihiin dhammaantiin mudanayaal iyo marwooyin haddana waxaan soo gaaray guntii iyo gunaanadkii barnaamijka laakiin waxaan rabaa inta aanan ka bixin inaan conclusionka barnaamijka sameeyo taasoo ah kala soo jeedintii ay aqoon-yahanadan jaamacadaha dhowaan ka baxay waddanka ay usoo jeediyeen shirkadaha hay-adaha iyo dowladda sidii shaqa la-aanta waddanka ka jira wax looga qaban lahaa oo shaqa abuur loo samayn lahaa si dhalinyaradu ay shaqo hesho laba qodob baa ugu muhiimsan labadaa qodob waxa ay yihiin waxa ay dhalinyaradu soo jeediyeen in shirkaduhu ay sameeyaan maalgashi dheeraad ah oo inta hadda ay maalgeliyaan maalgashi ka badan ay sameeyaan si maalgashiyada ay sameynayaan ay uga abuurmaan shaqooyin dheeraad ah taa waa qodob muhiima oo shirkadaha aan ugu baaqayno fursadaha waddanka ka jira inay maalgashi ku sameeyaan qodobkaa waxaa raaca oo la xiriira waxa ay tahay oo ay dhalinyaradu soo jeediyeen kana dhawaajiyeen runtii qodob muhiimana ah warshadaha small industrieska ama warshadaha yaryar ee waddankeena ku yaalla inay yar yihiin hadda waxa la sheegi karo jiraaba ay yihiin warshadaha biyaha sameeya oo kullu dadku inta badana intay isku daydeen cidiya gurta waxa ugu simbilsan iyo qaadada waddankeenu male lama sameeyo
shanlada caaga aan ku shaqaysano lama sameeyo. marka goor ganacsato iyo shirkado dadkiina dhaqaalahaya warshado yaryar oo waxba ku kacay shaqo abuurna dhalinyarada u sameynaya waa inaad hal abuurkeedii la timaadaan dadkaana idinka idin sugayaan maxaan ku idhaahdaa si fursad iyo shaqo laydinka helo sababtoo innaga caqabad dhibaato weyn ayaa waddankeenu face garaynaya dhibaatadaas waxay tahay productionka dadka ay dhalayno dad muslimiinha waa badan yahay qof kasta uu yaraan 7 buu dhalaa ragga qaar 2 xaasi 3 bay qabaan caruur badan 30 baa u jooga 20 shaqana ma jirto meesha soo baxaysa dhalinyarada soo baxay xagee bay aadeen qaar waa tahriib qaar waa dhibaato qaar waa hadda waxaad arkaysaa mararka qaar inta badan gabdhii bay furanayaan wiilashii furanayaan telefoonka banaanka lama mari karo waxa keenaya dad fara badan oo production soo saar oo waliba dadkeenu dhalinyaro u badan yihiin haddana aan shaqo meesha jirin marka shirkaduhu inay more investment sameeyaan especially small industrieska war waa ceeb dalka aynu joognaa inayna cidiyo gur iyo shanlo ayna samaysan oo aynu dibadda kala nimaado wax ugu simbilsan waa inay biyahan ay wada furayaan intay iska daayaan waxyaabaha yaryar oo fara badan oo bagaashka waddanka keena ee waddanka warshado uga abuuran ka sameeyaan oo ka abuuran dhalinyaraduna ay shaqo ka hesho ugu dambayna dawladda waxaan ku leeyahay oo soo jeedinaynaa inay systemkii dawliga ahaa iyadu maadaama nidaamka hayso ay la timaado oo gaar ahaan sida wasaaradda shaqada iyo shaqaalaha shaqo abuurka iyo shaqooyinka waxa khusaysa inay la timaado hal abuuradii ku dhiirigelinta dhalinyarada shaqo ee small businesska iyo farsamada maxaan ku idhaahdaa shirkaduhu inay more investment iyo fursadihii iyo ay u abuuraan furaan shirar qabtaan iskashana samey iyaduna dowrkii dawladeedu ahaa system ahaan inay waxaan uga shaqayso iyo dhiirigelina inay iyaduna insha allah rajaynaya dawladeena Puntland tabar badan male wax badan ay ka dadaalayso baa jira laakiin in ay iyadana taa waa tala soo jeedintaan u jeedinayno cidda ay khusayso insha allah barnaamijku saasuu inuu ku xiran yahay waxaan jeclahay oon rabaa mar saddexaad iyo mar afraad iyo mar shanaad aanaan u mahad celiyo TV-ga Sahal Cable iyo maamulkiisa annagoo ahaana academy runtii naga caawinay naga saaciday barnaamijkan qabsoomidiisa iyo barnaamijyo kale oo ku xigi doono ku saabsan fursadaha ka jira ganacsi ee waddanka small businesseska ah iyo farsamooyinka gacanta fursadaha waddankan ay ku leedahay gaar ahaan Boosaaso iyo Puntland barnaamijyo aan qaban doono oo soo socda oo Sahal Cable TV aan la kaashanayno oo runtii una mahad celinayno mar labaad iyo mar saddexaad aad baan u mahadsantihiin. Wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.